miraha iyo khudaarta ayaa wax baahi weyn looga qabaa dukaamada, makhaayadaha iyo waliba guryaheena, laakiin beeristooda iyo qodidoodaba iyo waliba helidda khudaarta aad ayaa loogu baahan yahay. qiimahooduna sare ayuu u kacay. laakiin hal ganacsade oo joogta magaalada Abuja ee Nigeria ayaa heshay hab cusub oo ah sida dadka loogu keeno khudaar markaasi uun la soo guray. dhirtu aad uguma fududo inay ka baxdo cimilada kulul ee Nigeria, taasoo keenayso inay ganacsatadu ay dibadda ka soo dhoofiyaan khudaarta. balse beertan ku taalo duleedka magaalada Abuja ayaa xal u heshay arrintaas. waxaan bilownay hab beereed oo aan ciid lahayn. waxaanna abuurnay ansalaato. markii ay soo baxday kadib ayaan ku fikirnay inaan sii ballaarino beerta. waxaan bilownay inaan abuurno beer si gaar ah loo ilaalinayo. waxaanna ku dhex abuurnay konteenar. markii aan waraabino, biyaha si toos ah ayay dhanka kale uga soo baxaan. markaas bay soo raacayaan tubo, kadibna dib ayaa loo isticmaali karaa. waanad u jeedaa dhirta aan beerno. kan casaanka ahna waa ansalaato. beertan ayaa xooga saarayso inay si joogto ah u kobciso deegaanka iyadoo dhaqaalaynayso biyaha, abuuraysana khudaar aan kiimikooyin lagu darin. digada digaaga ayaan isticmaalnaa oo waxaan ku darnaa bacrimeeyaasha, kadibna waxaan ku qasnaa biyo. marka 3 jeer ayaanu maalin kasta isku dhex qasnaa. marka ay diyaar tahayna biyaha ayaanu beerta ku furnaa. inaad ganacsi ka samaysato Nigeria ayaa ka fiican inaad jaamacadda Harvard dhigato. maxaa yeelay wax walba ayaad ku baranaysaa. degmadan biyaha ayaa aad ugu yar. marka waxaan aruursanay lacagihii faa'iidada ahaa si aan biyo ugu gadanno. caqabadaha kale oo nala soo darsay waxaa ka mid ah koronto la'aan. hadda waxaan isticmaalaynaa matoor, balse waxaan ururinaynaa lacag kale si aan ugu beddelno isticmaalka tamarta cadceedda. qorshaha aanu ka leenahay beertan ayaa ah inaan ballaarino oo aan ka furno suuq khudaareed si ay dadku ugu soo dalxiis tagaan oo ay ugu nastaan, balse waa inaan meel uun ka bilownaa marka hore.